kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba kula soo dhawaada barnaamijka garaad kaab waa ka daawataan marka soo booqataan shabakadaanu internetka ku leenahay dhallaankoreya.com iyo channelkeena YouTube ee garaad koriye sheekadan gaabani waxay ku saabsan tahay Rooble iyo xaaskiisa. Rooble waa nin malqabeena waxayna wada nool yihiin xaaskiisa uu jecel yahay. waqtiyada kamida ayaa Rooble iyo xaaskiisu waxay dalxiis u aadeen meel kamida xeebaha loo dalxiiska tago. waxayna degeen hotel qaaliya halkaas ay maalmihii dalxiiskooda ku qaateen. maalin maalmaha kamida ayaa xilli aroor hore ay tahay waxa uu Rooble xaaskiisa ka codsaday inay xeebta u wada dabaal tagaan, balse way ka diiday. waxay tidhi waan xanuunsanayaa xabiibi maanta oo waan bukaa. waxaan jeclaan lahaa inaan halkan iska joogo. haddii aad kelidaa tagtana kama xumi ee adigu iska soo dabaalo. waa u tegay kelidii, balse markuu xeebta tegay ayuu xasuustay inuu greenka cadceed laga marsado soo ilaabay. 20 mirir kadibna qolkii hoteelka ka deganaayihiin ayuu ku soo laabtay. markuu qolkii yimi waxa uu waayay xaaskiisii oo aan joogan halkii uu uga tegay. yaab iyo tacajab ayaa ku dhacay, balse wax yar kadib ayuu hoos u soo degay. wuxuuna arkay xaaskiisii oo ku baashaalaysa buul ama barkad lagu dabaasho oo qayb kale oo hoteelka ku taala. waxuu ku yidhi maxaad uga timi hoteelkii ood halkan u joogtaa? kelidaasi miyaa tahay? waxay ugu jawaabtay haa, waxaan ugu imi hoteelkii markii aad baxday ayaan ladnaaday oo bogsaday, kadibna waxaan doonay inaan xoogaa halkan ku dabaasho keliday. dabcan waa keliday ayaa halkan jooga. daawade hadda Rooble uma caddaan oo keliya inay xaaskiisu been u sheegtay, balse waxa u caddaatay inay khiyaantay. adigu miyaad aragtaa sababta ay taas uga caddaatay Rooble? haddii aad fahantay oo keliya sababta ayaad ka jawaabi kartaa adiga oo jawaabta saxda commenti noogu dhaafaya. qaybaha sheekadan oo dhammaystiran waxaad ka daawan doontaa channelkeena garaad koriye.